السلام عليكم kusoo dhawaada barnaamijkeena xogaha caafimaad aan maanta kusoo qaadan doono mowduuca laabdilaaca waxyaabaha sababa calaamadihiisa iyo sida looga hortagay daaweyntiisa intaba YouTube channelkeena haddii aad ku cusubta marka hore subscribe noo saar sidoo kale muuqaalka like saar siina share garay waan ku maasantaa dhibaato ma kugu hayaa laabdilaaca ama laabqararka gastroesophageal reflux disease waxaa la arkaa markii dhuunta daharkeeda muukoosaha loo yaqaano iyo aashitada caloosha ka timi isgaaraan waxaana ka dhalan kara caabuq dhuunta ah esophagitis iyo laabdilaac heartburn sida caadiga ah dhuunta iyo caloosha meesha ay iska galaan waxaa ku yaala sphincter oo ah meel dhuuqsan oo wixii caloosha gala aanay ka soo laaban karin waxyaabaha sababa waxaa loo kala qaadaa kuwa si dhab ah u keeni kara iyo kuwa soo dedejiya inuu yimaado laabdilaaca haddii aan ku hormarno waxyaabaha sida tooska u keeni kara laabdilaaca waxaa ka mid ah kow inuu yiraahdo dhuuqsanaanta sphincterka u dhexeeya dhuunta iyo caloosha oo kadibna aashitadii caloosha ku jirtay ay si toos u soo gaarto dhuunta sida saxda ahna dhuunta ma loogu talagelin aashito oo raashin unbaa mara sidoo kale haddii aashitadu dhuunta aysan si dhaqsa uga nadiifsamin sabab la xiriirta dhuunta oo aan dhaqdhaqaaq wax iska dejina sameynin waxay iyaduna keeni kartaa in dhuuntii caabuq oo ku yimaado oo aashitadii ay nugleedo difaaca dhuunta dhexdeeda ah halkaasina infection uu ka yimaado oo qofkii uu dareemo heartburn waxaa sidoo kale mararka qaar dhacda in dhuunta aysan raashinku ka nadiifsamin waa raashinka dhuunta mara ee u gudba caloosha xaggeeda inuusan ka nadiifsamin kadibna meeshii uu ka dhasho caabuq ama infection ku yimaado dhuunta dhexdeeda halkaasina haddii ay kusoo laabtaan wax yar oo aashitada caloosha xaggeeda ka yimiday qofku dareemi karo laabdilaac ama dhuuntii in aashitada yarta ay soo gaartay ay xanuujiso waxaa sidoo kale sababi kara laabdilaac qofku inuu ku yimaado wax la yidhaha hernia ama in xubin ka mid a qaybaha jirka xubnaha ku jira mid ka mid a ay aado meel aan booskeedii ahayn tusaale haddii qayb ka mid a dhuunta ay soo aado kor ama caloosha qayb ka mid ay soo aado kor waxaa iyadana qofka ku imaan karo laabdilaac laakiin labada xaaladba waa xaalado aada u yar waxyaabaha sida dadban u keena laabdilaaca ama aan si toosa u sababin waxaa ka mid ah uurka ayilka cunista dufanka iyo shukulaatada raashinka badan sigaar cabista waxaasoo dhan waxay keeni karaan in qofka laabdilaaca uu ku dhaco sidoo kale waxaa keeni kara in raashinka uu cuno qofku xilli dambe oo habeenkiiya kadibna uu ku seexdo calaamadaha laabdilaaca ee ugu caansan waxaa ka mid ah inaad dareento gubasho xabadka weliba lafsakaarta gadaasheeda oo lafta loo yaqaan sternumka ka dareento gubasho taasooy macnaha u tahay sabab aashitadii kugu soo laabatay sidoo kale mararka qaarkood waxaa isku arki kartaa in raashinkii iyo biyihii aad cabtay ay dib kugu soo laabanayaan waxaa loo yaqaana regurgitation loo yaqaana marka heartburn iyo regurgitation labada calaamad ugu muhiimsan la dareemo oo macna midna ay tahay inaad gubasho ka dareento qayb dambe xabadka ama lafsakaarta gadaasheeda iyo in wixii aad cunto kugu soo laabtaa qofka laabdilaaca qaba waxaa baaritaan ugu filan calaamadaha kugu yimaado sida laabdilaaca iyo raashinka uu dib ugu soo laabanayo hase ahaatee waxaa jira calaamado dareen leh haddii qofka uu kuu sheegto ay tahay in loo yeesho dareen waxaa ka mid a qofka oo miisaankiisu hoos u dhaco qofka oo raashinka cuni waaya qofka oo raashinka ka go-a qofka oo dhiig ka keena qaybta hore afka hematomas qofka oo ka keena qaybta gadaale yani dhiig ka keena oo loo yaqaano melena waa calaamado dareen leh sidoo kale waxaa la yidhahdaa qofka haddii 45 sano ka weyn yahay laabdilaacna uu muddo soo qaban jiray waxaa muhiim in tabar loo dhaadhiciyo endoscopy la gelsho oo kaamira waata si loo soo fiirsho gudaha iyo wax isbedel inay ku yimaadeen dhuunta laabdilaaca oo soo laabto waxay ka dhigan tahay in mar walba aashito ay ka imaanayso caloosha kadibna ay imaanayso dhuunta oo ah environment aan loogu talagelin sidaa awgeed waxaa isbedeli doona dahaarka ama xuubka dahaara dhuunta oo loo yaqaano squamous epithelium wuxuuna xuubkaas isu bedeli doonaa xuub u adkeysan kara aashitada tirada badan oo loo yaqaano columnar epithelium taas markay dhacdo waxaa meeshaas ka imaan kara qofka inuu ku yimaado kansar oo transformationkaas ama isbedelkaas ku yimid labada dahaar waxaa ka dhex dhalan kara waxa loo yaqaano kansar oo xubkaadna kansar ayuu isu bedeli karaa
waana sababta ugu badan ee la leeyahay qaybka in qofka ama waayahan dambe aad u soo baato kansarka ku dhaca dhuunta. Inkastoo jiri karaan waxyaabo kale sida qofka inuu isticmaalo sigaarka oo kale iyo waxaa kaloo keeni kara shaaha kul waa la yiraahdaa ama ashyaada sida natural iska kul. Sidoo kale waxyaabaha preservative la yiraahdo oo lagu ilaaliyo waxyaabaha gasaceedaysan inaysan isbedelin ayaguna waxaa la transformation inuu yimaado qaybin ka qaataan. waxaana lagu magacaabaa markaas oo stages qofka uu marayo baarid esophagus loo yaqaan baarid esophagitis loo yaqaan oo macnaha in labadu xub ay isbedeleen kadibna carcinoma noqon kara ama kansar ku dhaca dhuunta. waxaa daawada loo kala qaadaa laab dilaaca kuwa iska caadiya oo toos loo isticmaalo daawooyin sax ah iyo la tacaalis oo la tacaalayo calaamadihii uu la yareynayo sida inaad iska yareedo kula lifestyle-ka macnaha raashinka iska saxdo kale oo iska yareedo waxyaabaha kulul sida basbaaska liinta oo kale iska dhaafto wax kastoo isleeyahay way kugu kici karaan oo waxay ugu dari karaan xaaladda acidity-ga ama ashtada caloosha waa inaad iska dhaaftaa. sidoo kale waa inaad ka dadaashaa raashinka xilliga aad cunayso habeenkii oo kale late time waxaa cun waa in xilli hore waa cuntaa raashinka markaa cunto kadib hala seexan iska yarey raashinka qudhiisa hiifi ma ilaha cun oo raashin macnaha culus hamar ha isku dejin kadibna hala seexan la soo soco raashin markaa cunto biyo badan cab yacni waa ina waqti uu ka soo wareegaa raashin markaa cunto kadib. daawooyinka caadigaana waa dhakhtarkaada kuu qori doona markaad u tagtood booqato insha allahu tacaala kuwa caadi la ogoliyo la iska qaato waa jiraan omeprazole oo kale laakiin gabadha uurka leh bilaa hore ma qaadan karto oo BPI daawooyinka ayaa kamid ah bronto pump inhibitor waxaa la isticmaalaa nus saac ka hor la isticmaalaa raashinka oo 30 daqiiqo ka hor ka wada macnaha waana 20 mg ku yimaadaa 40 mg ku yimaadaa sharooboyin waa jiraan raashinka dibadda la isticmaalo. waxaan rajeynayaa asxaabta ugu xiran inaad wax badan ka fahanteen insha Allah taala mawduucan talooyinka qaarkood soo jeedin inaad ka faa'iideystaan oo raashinka oo kale ee iska yareeyo waxyaabaha laab dilaaca keeni kara sidoo kale aad wax ka bedeshaan lifestyle-ka iyo waxyaabaha qudhiis raashinka xataa la cuno wax ka bedeshaan sidoo kale xilliyada wax cunaysiin aad wax ka bedeshiin hala dadaalo caafimaadka Ilaahay gacantiisa ku jira marka dadaalku lama horan badan hadaan anaga nahay waa ceeb aan ka wasiibanahay nafteena anaga wax u qabanaa eedeena marka hala dadaalo insha Allah taala dhaqaatiirna hala booqdo waa muhiim in qofku dhakhtar booqdo laab dilaac badan isku arko waqtiga soo laabto sababtoo ah waxa waaye wuxuu ku dambeey karo laab dilaac waa in qofku uu dambeyn u develop gareeyo kansar oo kale Ilaahay naga haye waa wax ma kara macnaha hadii aad qof u ka taxadirin laab dilaac tirada soo laabtay dhaawac wuxuu u geysan karaa dhuun daharkeedii wuu develop gareey karaa wax iska waxa boqolkiiba yani boqol ma ahan laakiin waa waxyaaba caawin kara inuu yimaado fahmaysa marka insha Allah taala ku dadaal si guudna caafimaadka iska jagaray bidnaa kariim waa ma santihiin muuqaalka laag inoo dhaha subscribe na saara asxaabtana la wadaaga channelkiina koro waxaan sidoo kale soo dhaweynayaa wixii talo iyo tusaalaha inaad qaybta comment ugu qortaan ama Facebook xoga caafimaad ka raadisaan qaybta message-ka kala soo hadashaan wixii su'aalaad qabtaan wixii aan is dheernahay guud ahaan markaas discussion ku sameyn karnaa insha Allah taala wana ma santihiin